السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإسماعيل أبو زيد oo jeclaystay in aan idin cadeeyo arrin labadan bari ba soo noqotay arrinta waxay ku saabsan tahay in lagu soo qoray joornaal ama magazine ama newspaper ka soo baxo magaalada Seattle ee gobolka Washington ee Mareykanka in gabar Soomaaliyeed oo da'deeda lagu sheegay 11 sano magaceedan lagu sheegay Ayan ay u baahan tahay qoys Soomaaliyeed ama Muslim oo gabadhaas xanaanaysto ama daryeesho arrintaas markii aan maqlay isla maalintaas waqti ku dhow ayaan dadka ka maqlay ku jiray waxaan kamid ahay dad Soomaaliyeed oo fara badan oo u damqaday bini'aadanimo iyo Soomaalinimo iyo Muslimnimo awgeed ugu damqaday arrintaasna la sheer gareeyay ama u sheegay dad fara badan oo Soomaaliyeed kale oo ayagana aan ku ogaay khayr arrintaas markii ay dhacday maalinta Axad ahayd oo bisha ahayd 3 May ay arrintaas si fiican u soo isbaxday ay noqotay waxa la viral ama sameelo badan gaartay ilaa ay Afrika ilaa ay Asia Europe meel walba waa naga soo wacay nasiib wanaag maalintii Isniinta aad iyo aad ayaa loo wacay agency-gaas ama se meeshaas oo company-gaas soo sameeyay arrintaas oo dad fara badan ay sheegayaan in ay damacsan yihiin ama sarabaan in ay gabadhaas qaataan ay ayaga xanaanaystaan Soomaaliyeed ayaan markii arrinta halkaas marayso ayaa waxaa dhacday in ay sheekada gaartay cidii gabadha ay ka soo jeeday ama waalidkeed iyo qaraabadeeda gabadha sida lagu sheego hooyadeed way geeriyootay Allah u naxariisto shil aabaheedna wadanka ma jooga Afrika sida la sheegay habaryarteed iyo ayeedeed ayaa jiray oo marna la siin jiray marna laga qaadi jiray gabadha haddana sida ay u muuqatay waxa waaye wali agency-ga ayaa wali involved oo ku dhex jirta arrinta sidaas awgeed ayaana keentay in gabadha la soo geliyo joornaalka arrinta halkaas markay marayso ayaa waxaa dhacday in la isku kiciyay buuq iyo qayladaan iyo qayr dadkii marka anaga aan kamid ahay oo arrintaas isxaan iyo walaaltinimo iyo Soomaalinimo ugu istaagay in la jaa'ifeeyo oo la ceebeeyo oo la dhaho arrintan waxayba ahayd ba sanad ka hor oo anaga soo faagnay oo ma aysan ahayn sanadkan waa arrin la xaliyay gabadha gurigooda joogtaa wax dhiba ma qabto xitaa la isku day video yalla yar la soo jarjaray in la soo geliyo meelaha oo arrintaas lagu cadeynayo marka anagii waxa isku keen qaban waysay arrintii aan joornaalkii ka soo akhrinay iyo arrintan la isla dhaxmarayo xitaa waxaan arkay dad culimada inkastoo sharaf iyo wax kasta ay naga mudan yihiin haddana waxay ku fiicnaan lahayd inay culimada si daacadnimo u hadlaan oo ayaga naftirkooda anagana jaa'ifeenayo waxaan dhageystay aniga qof sheekh ah oo waliba aan magacoodooda ma sheegay oo aan dadka xushmada u haayo ku jira ilaa ay hadda u haayo oo dhahayo lacaga lagu aruursanaya subhanallah ma gabar yariiso Soomaaliyeed oo masaakiin anaga aan lacag ku aruursanayna waa subhanallah waxyaabo oo qaarkood laga yaabo waay laakiin waxay ahaataba waxaan rabay in aniga idin sheego aniga inaan subaxan wacay oo la hadlay agency-ga arrintan soo geliyay oo aan weydiiyay arrintan gabadhan hadiiba sanad ka hor la xaliyay mar hore la xaliyay maxaad hadda u soo geliseen ayagana igu dhaheen may lama xalineen anaga waxa la xaliyay maba soo gelinay sabdigaana soo gelinay haddana soo gelinay may safrla sabdigaana soo gelinay oo bisha labada ahayd waxaan u soo gelinay dadka oo ilmaha guryaha loo raadinayaan soo gelinaa ilaa ay haddana sabab waxaan helnay dhaheen dad fara badan oo soo wacay arrintan ka danqado wayna ku faraxsan yihiin maadaama ay dadka markay soo geliyaan waxaasay rabaan in dad badan ay la soo xiriiraan ay rabaan saas awgeedna waxay dhaheen hadda maadaama dadkaas badan soo xiriireen hold wax la dhahan gelinay oo micnaha waxa waa kala shaandeynaynaa waa arrinta si aan aniga warkayga bas aysan u ahaanin waa idin soo duubay videogaas hadalkaasna dhex maray waa idin soo duubay lambarka taleefanka oo laga wacane haddaad maanta Google garaysid hay'adda waxa la dhahaa Northwest Adoption Exchange oo qaybta oo waqooyi galbeedka Mareykanka oo 3 gobol ay dadkan serve gareeyaan adoption micnaha waa ilmaha la korsado exchange haddaad rabtiin lambarka shaashada idinkugu soo qormi doona qofkii raba ha waco arrinta aniga hadda idin sheegayo qofkii raba inuu fact check igu sameeyo ha soo sameeyo marka waxaan rabaa maxaa la gudboon dadka family-ga horta waxaan rabaa inaan dhaho iyo dadka qaraabadooda iyo dadka ka naxayo anaga isxaan iyo walaaltinimo ayaan waxaas idinkugu sameeyay nacayb ama xaasidnimo ama faagitaan ma aan idinkugu sameeyay marka dadka walaalaheen oo asxaabta oo arrintaas u istaagay yaana la xagxaganin midda labaad waxaa muhiim in aad adinka soo cadaysiin sababta gabadha loogu qoray joornaalka maalinta sabdiga haddaad haysatiin oo gabar sax tahay oo gurigiina lagu haayo oo dhibkaas jirin maxaa keenay in sabdigii 2 bisha May 2020 lagu soo qoro joornaal gabadha sababta micnaheedu waxa waxbaa jiro adinkana aadan sheegaynin kulleeytaba adinka iyo Ilaahay idin jirtaa
annagana midiin haysano maanta wixii ka bilowdo aniga gabadhaas ma u raadinayo qoys adabti gareeyo sababtoo idinka saasa tiraahdeen ilmo kale fara badan jiro oo systemka ku jiro oo xabiista ku jiro kuwaas oo Soomaaliyeed ku mashquulina alxamdulillah hada idinka sheeganaysiin ina gabadhiina haysatiin oo la idinka qaadanin waa wax idinka idin jiro laakiin dadka xagxagashada ka dhaafa culimada beenta u sheegina dadka kale akhyaarta ee been u sheegina gabadha sabdigii 2 bisha May la soo geliyo joornaal ilaa iyo haddana waxay ii xaqiijiyeen organizationkaas in ay gabadha hold ku jirto hold micnaheedu waxa way systemkay wali ku jirtaa hold ay ku jirtaa family u raadinayaan ayaga warkaas afkooda ku dhaxay ayagaan subaxan la hadlay waan idin soo gelinaa ayadoo cod qofkii rabane oo la xiriiri karaa wax kale hard feeling iyo wax kale la qarqarinayo iyo wax la daba marinayo meesha ma jiraan waa transparency waa clear ma rabna in gabar Soomaaliyeed la dhibo ma rabna qof Soomaaliyeed in la dhibo sidaas awgeed ayaan u soo sameeyay videogan gaaban insha Allah waana soo gelinayaa waad arki doontiin hello yes how can we help you today? Okay, is this Northwest Adoption? Yes, my name is Ismail Warsame. I'm a community member in the Somali community. And I was responding to that ad that was put out on Seattle Times, I believe, on Saturday, May 2nd. And about a child called Ayan. Is that something that your office has been handling? So we just do the recruitment. So what that means is that, or how we operate is we work with the state. We work with 3 states, Washington, Oregon, and Alaska. So we help them by featuring youth that are looking for adoptive homes on our website. And from time to time, we will get permission to put them in the newspaper. So that is what happened. Ayan is actually currently on hold right now. There's been a lot of overwhelming interest from the Somali community, which has been really great. But right now her team just needs some time to look at what the best next steps for her are. Okay, that's wonderful. I mean, the concern I think we had was, which is, I mean, it's a good thing that a lot of people are interested in adopting, and that's what we really were hoping for. I think the concern is some people were confused about the timeline of that. Some people thought that she was already adopted, and they were worried why was that ad put on the newspaper on 2nd of May. Can you clarify on that? I will say that we are very much in touch with the people that we need to be in touch with, and we do not run those newspaper columns if a youth has already been placed with a family. Okay. And that ad was run, can you confirm what date? May 2nd. May 2nd. Okay, so that's all I really wanted to clarify, and we're happy that you're all working on this, and I just want to express that as a member of the Somali community, I was one of the few folks that actually heard about that through your ad and responded, and it looks like literally thousands of people were interested. haddaba sida idinkaga muuqata klibkaas yarood maqlayseen gabadha waxaa la soo geliyay joornaalka maalinta 2 aheyd ee bisha May sanadkan oo aheyd sabdigii hadda la soo dhaafay waxa anaga soo alifana ma aha waxa anaga barbarnay ma aha sheeka anaga keenay ma aha gabar Soomaaliyeed oo joornaalka lagu soo qoray ayaan kaliya rabnay inaan caawino marka waxaan rabaa hooyooyinka walwalsan in dadka dhan Soomaalida oo buuqsan dadka wareersan fadlan waa ogahay WhatsApp group aad isticmaashiin iskugu share gareeya iskugu sheega dadka waxaan bilaabay inaysan ahayn dad daro iyo xaasidnimo kala waday dad waxay ahaayeen Soomaalinimada u istaaga marka yaanan la isku dirin dadka yaanan la dadka aan laga discourage gareynin inay Soomaalinimada u istaagaan ee muslimnimada u istaagaan bil Ramadaana lagu jira Ilaahay laga cabsado marka kaliya waxa idin dhihi lahay isla share gareeya isku sheega arrintan anaga waxa caatifad kale iyo xanaaq kale u qabna malaha family-ga Allah u barakeeyo gabadhooda hadii ay maxay ahayd ayaga haysanayaan alxamdulillah hadii ayaga la siina alxamdulillah kulli tabo agency-ga oo maxay ahayd adoption-kaas gacanta ku hayso war kale noo sheegeen hadii adinka aad ku qanacsan tihiin ina gabadha saas lagu haysto alxamdulillah haddana yeesan dib kale idinka soo yeerin waa kaasa Ramadaana lagu jira hal is cafiyo salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh